السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا قضبضي وركبوا وينا لو مدحوين الصوماليا سو مرتي او لقرشينيا إن لحرو بدلان او كوهن جبتي إن أي شباب ملتري كبحين دون تقرشها فرماجو ديارد مرايكان كلية هاي او لغو أركي مقالة كيسمايو ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo ku biiray Jubbaland iyo shirar ka socda qaybo kamid ah gobolka Gedo intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa daawadayaal halkaad nagala socotaan waa Maahiya Media Production iyo Southern Media Production ku soo dhawaada warkii oo fidsan shalay galinkii dambe degmada Buulaxaawa ee gobolka Gedo waxa khudbad u jeediyay ciidamo ka tirsan dawladda iyo kuwa daraawiishta Jubbaland wasiirka amniga maamulkaasi waxa ciidankani qaarkood ahaayeen sida Jubbaland sheegtay askartii hore ugu biiray dawladda balse hadda dib ugu soo laabtay maamulkooda ciidamo ka yimid degmada Doolow iyo kuwa hore u joogay Buulaxaawa ayaa la sheegay in ay Jubbaland ku biireen sida warbaahinta u sheegay afhayeenka wasaaradda amniga Jubbaland Cabdishakuur Ibraahim Xuseen Cabdirashiid Janan ayaa waxa uu sheegay xilli askartaasi uu kula hadlayay Buulaxaawa in ay ka shaqeeyaan amniga iyo dagaal lala galayo al-shabaab dhinaca kale kulamo aan kala dhicin ayaa shalay ilaa iyo saaka waxa ay ka soconayeen aaga Mandheera oo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo saraakiil kale ay lahaayeen dadka ku agdhowaa kulankani ayaa waxa ay sheegeen in kulamadani ay yihiin kuwa looga hadlaya xaaladda gobolka Gedo iyo waxa ay ku sheegeen duulaan dawladda Soomaaliya ay ku soo qaaday gobolkaasi sidii isbedel loogu keeni lahaa wali waxay muuqataa in dawladda Soomaaliya iyo Jubbaland ay isku hayaan gobolka Gedo taas oo dhaqdhaqaaq ciidan iska soo horjeeda isbuucii saddexaad laga dareemayo gobolka Gedo maamulka Puntland oo ku hanjabay in ay jawaab military ka bixin doonto qorshaha farmaajo gudoomiyaha gobolka Mudug ee maamulka Puntland Axmed Muuse Nuur Yare ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya wado qorsho ay ciidamo uga daabulayso qaybo kamid ah gobolka Mudug gudoomiye Axmed oo wareysi gaar ah siiyay wargeyska Puntland Post ayaa sheegay in marka hore ay ka warhayeen qorshaha dawladda Soomaaliya ay ciidamo badan ugu daabulayso gobolka Mudug si ay ula wareegto guud ahaan gudoomiyaha ayaa xusay in bisha saddexaad ee sanadkan ay dawladda Soomaaliya doonayso inay ciidamo geyso magaalada Gaalkacyo ee xarunta Mudug si ay u qabsato guud ahaan gobolka Mudug oo ay isla maamulaan Puntland iyo Galmudug gudoomiyaha ayaa tilmaamay in dawladda Soomaaliya qorshahaasi ugu magac dartay xoreynta gobolka Mudug isla markaana ay ujeedada tahay sidii loogala wareegi lahaa maamulka Puntland qaybaha ay ka maamusho gobolkaasi Axmed ayaa sheegay in qorshaha ay wado dawladda uusan shaqayn doonin isla markaasna uu ka soo dhamaan doono fashil weyn sida uu hadalka u dhigay waxaa jira qorshe ay ugu magac dartay Villa Soomaaliya xoreynta gobolka Mudug laguna doonayo in Puntland looga xoreeyo gobolka balse fashil buuxo ayuu ku dambeyn doonaa ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Mudug ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Mudug ayaa xusay in qorshaha ay Villa Soomaaliya wado uu qayb ka yahay barnaamij ay ku doonayso in ay kula wareegto deegaanada ay ka taliyaan maamul goboleedyada waxaana tusaale ahaan u soo qaatay ciidamada ay dawladda Soomaaliya geysay gobolka Gedo dawladda Soomaaliya ayaa bilowday in ay awood ciidan u isticmaasho maamulada dalka ka jira si ay halkaasi u geyso shakhsi ay iyada wadato oo ku shaqeynayo siyaasadeeda laba madaxweyne Soomaaliya soo martay oo la qorsheenaya in la xiro
madaxweynaha dalka Eritrea ayaa wacad ku maray in uu ka caawin doono madaxweyne Farmaajo inuu soo xiro labada madaxweyne asaga ka horeeyay xukunka dalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Afwerki ayaa hadalkan ka sheegay kulan bishii hore uu kala kulmay madaxweyne Farmaajo magaalada Asmara ee dalka Eritrea. Afwerki ayaa rumaysan in labadaasi madaxweyne ay qayb ka ahaayeen qorshooyinkii lagula dagaalamay dowladiisa iyaga oo garab siinayay xukunkii Tigreega ee talada dalka Itoobiya hayay xilligii ay talada dalka Soomaaliya hayeen. Afwerki ayaa gaar ahaan waxa uu eedan xoogan dusha kaga tuuray madaxweyne Sheekh Shariif isaga oo ku tilmaamay in uu ahaa ninkii qayaanay kacdoonkii maxkamadaha isaga oo la saftay qorshihii ay wadatay dowladda Mareykanka iyo hoggaanka Meles Zenawi. dowladda Eritrea ayaa ciidamo u soo tababaraysa Farmaajo kuwaas oo dufcadii ugu horeysay la filayo in la keeno magaalada Muqdisho dabayaaqada bisha Maarso ama horaanta bisha Abriil ee sanadkan. ciidamadaas oo ku hubeysan hubka noocyadiisa kala duwan ayaa la filayaa in ay si xoog leh la wareegaan dhammaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Farmaajo ayaa la filayaa in asbuuca soo socda uu dib ugu laabto magaalada Asmara ee dalka Eritrea halkaas oo uu kula soo kulmi doono ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha dalka Eritrea. Farmaajo ayaa ku sheegay wareysigiisii ugu dambeeyay in dalka uusan xamili karin doorasho iyo hoggaan cusub isla markaana ay muhiim tahay in hoggaanka hadda jooga uu dalka sii hayo. hadalka ka soo yeeray Farmaajo ayaa ahaa fariin ku socotay madaxdii hore iyo musharaxiinta doonaya in ay ka qayb qaadato doorasho dalka ka dhacdo. diyaarad Mareykanka leeyahay oo lagu arkay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ee caasimadda gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in halka ilaa shalay ay haabeysay diyuurad weyn oo ay leeyihiin ciidamada Mareykanka. diyaaradan oo ah kuwa wax duqeeya ee aadka u qarada weyn ee BG-10 ayaa la sheegay in ay dhowr jeer ku dul wareeganaysay magaalada Kismaayo. dadka maxalliga ah ee magaalada Kismaayo ayaa sawiro ka qaaday diyuuradani oo aan nooceeda looga baran in ay ku soo dhawaato Kismaayo. arrinkan oo aan si saaxi ah wax war ah oo rasmi ah looga helin maamulka Jubbaland iyo Mareykanka midna ayay dadku fasiraado kala gedisan ka bixiyay. qaar baa sheegaya in diyuuradani indhaynayso duqeymo ay ka samayso goobaha ay shabaabka ka joogaan gobolka iyaga oo aad uga saameyn weyn daroonada halka duqeymaha ka geystaan. wararku waxay intaasi raacinayaan in uu socdo qorshe balaaran oo ah weerar dhinacyo badan lagaga qaadayo kooxda Al-Shabaab. halkaasi ayaan ku soo afmeeraynaa wararkii aad kala socoteen Mahiye Media Production iyo Southern Media Production. inta dib aan ugu kulmayno warka xiga waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo iyo waliba in aad asxaabtiina la wadaagtaan isla mar ahaantaasina haddii aad channelka ku cusub tahay aad subscribe noo saartid